socdaalku ma xogtabin baa mise waa falsafad lagu fahmo aadamaha. maanta waxaynu dib u raacaynaa raadkii saamiyihii weynaa ee ibnu batuuta. waxaynu dhex mari doonaa jidadka saylac, suuqyada cadan iyo barwaaqadii muqdisho ee qarnigii 14aad. diyaar ma u tahay inaad ogaato dhabarta saddexda magaalo cadan, dekadii kulayd? ibnu batuuta wuxuu inoo sawirayay cadan, magaalo buur ku hareeraysan yihiin, kuleel badan, laakiin ah xarunta ganacsiga hindida. ma rumaysan kartaa in hal wan oo suuqa joogay ugu kala iibsanaya 400 diinaar? taasi waxay noo sheegaysaa tartankii iyo hantidii tiilay xeebta Yemen, Saylac, magaalada Berbera. 4 meelood oo bad mareer ah kadib waxaynu cagto dhignay Saylac, waxaynu ku sifeynay magaalada Berberka. wuxuuna arkay dad madow oo Shaaficiye ah, arac yiilan oo subag badan iyo suuqyada oo mashquul ah. Saylac waxay ahayd albaabka laga galo Afrika. Muqdisho, xadaarada geeska. muqdisho waxay ilo muuqatay meel ka nidaam iyo hanti badan, magaalooyin badan uu soo maray. waa halkii uu ku arkay sida bulshooyinka xeebaha u maareeyaan kheyraadka iyo maamul wanaagga. socdaalku iyo sahanku ma noqon karaan agab si qoto dheer loogu fahmo aadamaha. sahmiyuhuse isaguu ka gudbaya bad iyo xeebo ma isu bedeli karaa qoraa soo yaaleeya fikirka, dhaqanka dadka iyo dhismaha, halkii uu kaga koobnaan lahaa soo gudbinta muuqaalo duleed. tijaabada ibnu batuuta ee xeebaha Soomaaliyeed iyo Yemen tusaale ma noqon kartaa fahanka xidhiidhka ka dhexeeya juqraafiga iyo dadka, iyo xidhiidhka ka dhexeeya bulshada, maamulka iyo xadaaradda. wadiininimada weydiimahani waa kuwo dhaafsiisan sohdinta wax iska weydiinta juqraafiga iyo tebinta tooska ah, gugundhigna u ah in fahanka isku bedeli karo dhibaateyn aqooneed. ibnu batuuta 1304 ilaa 1368 buuggii uu qoray wakhtigaasi kuma koobsaneen soo tebinta muuqaalada dusha ah. wuxuuna isku dayay inuu magaalo kasta u sameeyo qariirad bulsho siyaasadeed, sida magaalooyinka cadan, Saylac iyo Muqdisho, isagoo diiwaangelinaya habdhaqanada dhaqaale, dabaaldegyada iyo caleemasaarka iyo maamul wanaagga. isagoo u kurgalay suuqyada, habdhaqanada maamul, martisoorka iyo awoodda jidheed ee dadka deegaanka ah. ibnu batuuta wuxuu soo gudbinayaa aragti isku dhafan, koobaysa aadamaha, dabeecadda iyo maamulka, isagoo xaqiijinaya in socdaalku isu bedeli karo qaab lagu ogaado dhaqanada bulshada iyo fahanka isla falgala dhaqaale iyo bulsho, laguna kurgali karo jidad ay ku samaysmaan ilbaxnimooyinka una sii jiraan. sheekooyinkan ibnu batuuta uu ka soo tebinaya magaalada cadan waxay albaab u furaysaa in dib loogu noqdo fahanka laga haysto dhismaha iyo magaalowga ka dhex unkuma deegaan qarfo iyo kheyraad kooban leh. isagoo ku safeynaya hadalkiisa ah, kadib waxaynu ku socdaalnay magaalada cadan ee ku taala xeebta badda weyn, buurana ay ku hareeraysan yihiin. hal meel keliya baa laga geli karaa, waa magaalo weyn si aan lahayn beero iyo dhir iyo biyo badan. waxayna leedahay galal biyuhu ay ku aruuraan maalmaha roobka. ilbaxnimada looma tixgeliyo xarun xudun keliya ah ee waa tilaabooyin iyo xadaaro badan. muuqaalku uu ibnu batuuta ka bixiyey magaaladani waa mid tusaale u ah qaababka bulshooyinka xeebuhu ay u maareeyaan suqulka kheyraadka iyo sida ay badda ugu dhigtaan ganacsiga iyo dadaalada qofeed si ay u buriyaan shuruudaha dabeecadda adag. cadan waxay taagan tahay meel xeeb ah oo ka hirgelay dhaqaale, xitaa iyadoo aanay jirin tiirarka soo jireenka ah ee magaalowga. sheekadiisii caanka ah oo kaga hadlay wanka, waxaa dhacday in wankaasi maalinkaasi noqdo wanka keliya ee suuqa joogay. sidaas darteed gorgortanka qiimihiisa ayaa 2 addoon wadeen ilaa la gaaray 400 oo diinaar. kolkii siidka addoonkii ogaaday arrinkani waxa uu siiyey 1000 diinaar. sheekadani ka sokow in ay la yaab tahay, waxay sawiraysaa dhaqaale mala awaal ah oo dhaafsiisan caqliyadda kala bedelashada waxtarka, isuna bedelaya tartan si loogu dhigo jid loogu muujinaya kaalin iyo awood qofka bulshada dhexdeeda ku leeyahay. sidoo kale ibnu batuuta wuxuu magaaladani ka soo gudbinayaa habdhaqan wanaagsan iyo anshax, isagoo reer cadan ku tilmaamay in ay yihiin dad diin leh, iskuuldhig leh, wanaag leh, anshax suuban oo si wanaagsan u soo martida, mudnaantana siiya saboolka. ibnu batuuta wuxuu gaaray Saylac, wuxuuna ku tilmaamay hadalkiisii ahaa, waxaan ka socdaalay magaalada cadan anigoo badda ku jiray 4 maalmood. waxaan gaaray magaalada Saylac, waa magaalada Berberka, waa bulsho ka mid ah dadka madow, madhab ahaanna waa Shaaficiye ah, dalkooduna lama degaan yahay oo 2 bilood oo keliya loo kala socdo. waxa ugu horeeya Saylac, waxaana ugu dambeeyay Muqdisho. xoolahooduna waa geel, waxay leeyihiin ari shalis ah oo subag ku caan ah. reer Saylac midab ahaan waa madow, badankooduna waa Shaaficiyo, waana magaalo weyn oo leh suuq weyn. waxa uu sheegayaa in magaaladani ay ahayd xarun weyn oo ganacsi oo suuqyada waaweyn ku soo jiidata dhaqdhaqaaq dhaqaale. waa magaalo muujinaysa sida dadkeedu awood ugu leeyihiin nidaaminta noloshooda bulsho iyo dhaqaale.
kuna dhex maareynayaan lama degaan noloshu adag tahay. Waa arrin muujinaysa kartidooda ah in kheyraadkooda ay ka mara dhalin karaan suuq firfircoon iyo ganacsi lagu soo hirto iyo magaalo xarun u ah shabkadaha ganacsi ee gudaha Afrika iyo xeebaha. Ibn Battuta intii uu ku jiray socdaalka uu ku maray magaalooyin iyo dhulul badan oo ay ka mid yihiin Cadan, Saylac iyo Muqdisho, waxa uu u kuurgalay habdhaqanada bulshooyinka, caadooyinka iyo sida ay isu maamulaan iyo sida ay ula falgalaan bulshooyinka baxsan. Waxa uu xaqiijiyay in socdaalka laga dhigan karo agab loogu kuurgali karo jidad ay ku samaysmaan ilbaxnimooyinka. kolkuu uu gaaray magaalada Muqdisho ayaa khibrada socdaalkiisuna fikta gaaraysa, sababtuna magaaladu waxa ay feedaysaa hanaan xadaaradeed oo isla falgashan gabi ahaanba ka duwan Saylac si kasta ay isugu dhow yihiin. waxuuna ku sifeeyay Muqdisho hadalkiisii ah waa magaalo aad u weyn, dadka deganna ay yihiin ganacsato xooggan. dhaqanka magaalada waxaa ka mid ah in kolku markabku uu yimaado dekada kor loo qaado sanaadiiqda, qof kastana yiraahdo qofkan baan ku degayaa. ganacsaduhuna meesha kaliya uu ku degi karo waa qof martigeliya. nidaamkani wuxuu muujinayaa xiriirka ka dhaxeeya ganacsiga iyo martigelinta, iyadoo soo dhaweynta ganacsaduhu noqday qaab lagu xakameeyo suuqa, ilaalinta sicirka iyo damaanad qaadka kalsoonida si ay u sinaadaan anshax dhaqaale iyo anshax bulsheed. intaa waxaa dheer Ibn Battuta inuu soo gudbinayaa faahfaahin ku saabsan qaab dhismeedka maamul ee Muqdisho, isagoo suldaanka magaalada ku tilmaamay hadalkiisa ah waxa uu ugu yeeray sheekh, afka Carabigana waa uu garanayaa. waa arrin ka turjumaysa sida uu isugu milmay suldaannimada iyo sheekhnimada. arrinkaanu isku dhafaya sharciyada siyaasadeed iyo kaalinta ruuxiga ah oo ah qaabka xukunka ka dhigaya mid ku dhisan isku dheelitirnaan, hibad maamul iyo kaalinta ruuxiga ah. tilmaamtani waa mid soo bandhigaysa fahamka bulshada ka haysato hoggaanka siyaasadeed, sababtoo ah xukunka kaliya kuma tirsana awood maadi ah, sidoo kale waa mid baahi u qaba ixtiraamka qiyamka diiniga iyo bulshadeeda. Ibn Battuta waxa uu ka sheekeynayaa habka uu sheekha Muqdisho u soo dhaweeyay, isagoo faahfaahinaya anigoo garsooraha la socda ayaa salaamay. intuu isoo dhaweeyay ayuu garsoorihii luuqadiisa kula hadlay, kadibna Carabi ayuu igu yidhi soo dhawow, imaatinkaagana waa inoo sharaf. waxaa madaxa loo saaray 4 koofiyadood oo xariir midibsan ah, korka sare ee koofiyad kastana waxaa ku dhagnaa sawirka shimbir dahab ah. waxaa loo tumay durbaan, wuxuu qaabka ku gala golaha wasiirada. odayaashii iyo saraakiishii ciidankuna waxa ay fadhiisteen gogol agtaalay, garsoorahana waxaa loo goglay gogol aanan cid kale kula fadhiisan. habdhaqanadani waxa ay sheegayaan in maamulka Muqdisho ahaa nidaam loo dhan yahay oo magaalada siiya dareen bulsho iyo mid siyaasadeed oo midaysan, iskuna xidha hoggaanka sharci iyo heybadda macnawiga ah iyo nidaaminta nolosha magaalada. Soomaalidu uu ku arkay Muqdisho Ibn Battuta wuxuu uu ku tilmaamay dad jir ahaan leh laf iyo lud, isla markaasna leh maamul iyo hoggaan nidaamsan oo kala dambeyn ka muuqata marka ay timaado cuntada soo dhaweynta iyo dhismaha jidheed. Ibn Battuta wuxuu uu ku bixinayaa faahfaahin qoto dheer oo muujinaysa sida bulsho ula falgashay kheyraadka dhaqaale iyo dhaqanka magaalada. waxa uu ka sheekeynayaa cuntada isagoo leh cuntadoodu waa bariis subag lagu kariyey, muuskuna intuusan bislaan waxa ay ku kariyaan caano. waa faahfaahin muujinaysa kala duwanaanta cunto iyo baraadaha nololeed ee cuntooyinka maalinlaha ah iyo waxyaalaha kala duwan ee la isku daro. waxaa kaloo uu xusay awoodda jidheed iyo dadka degan Muqdisho isagoo leh qofka kaliya reer Muqdisho wuxuu cunaa inta koox inaga ah ay cunto. waa dad awood jireed leh. tilmaamta kolka loo eego cuntadoodu waa tilmaam hodantinimo dhaqaale iyo awoodda in la saaro wax ku filnaada baahiyaha qofka iyo kooxduba. waxaa kaloo uu soo bandhigayaa dhaqanka iyo soo dhaweynta martisoorka. falsafada magaalowga iyo siyaasadeed waxay si qeexan ugu muuqanaysaa fadhiga xukunka toddobaadlaha. kadib waxaa soo galay garsooraha, fuqahada iyo dadka la ixtiraamo, kadib wasiirada, kadib gudoomiyaha, kadib saraakiisha ciidanka. waxaana la keenaa cuntada oo garsooraha iyo dadka inta kaleba ay ku cunaan sheekha hortiisa. kala dambeyntaani waxay muujinaysaa nidaam siyaasadeed oo isla falgashan, si heer sareysana la iskugu xigsiiyey oo koobaysa heybadda iyo hoggaansan, sidoo kalena kulminaysa wadaagga talada. hadalladii soo jiidashada lahaa uu ku tilmaamay Ibn Battuta magaalada Muqdisho ma ahan quruxda magaalada, hantida suuqyada, waa dabeecadda qofka Soomaaliga ah, sidii uu isaga u arkayay awood jidheed, deeqsinimo dhalad ah, tixgelinta culimada, nidaam bulsho oo adag iyo hanweynaanta aqoonsiga bulsho. kol haddii falsafada socdaalka aanan kaliya aynan ahayn soo bandhigidda muuqaalka sare oo ay u badan tahay aqrinta xadaaradda aadamaha, waa suurtagal in aynu dhahno Soomaalidu Ibn Battuta darsay waa tusaalaha sida juqraafiga iskugu bedelo shakhsiyadda. baddu waxay abuurtay furfurnaan, qabiilku waa kaa saameeyay dabarka, diintu waa taa keentay kala dambeynta, ganacsigu waa kaa abuuray hodantinimada, waa aadama qaab ilbaxle oo la midoobay deegaankiisa. ugu dambeyn socdaalkii Ibn Battuta uu xeebta ku maray kolka
la isla aqriyo wuxuu dib u qaabeynayaa sawirka Soomaalida iyo Yemen ee xilligii Ibn Battuta isagoo ka dhigaya dooni ganacsi juqraafiga iyo shakhsiyaduna isu milmeen deegaanka xeebtuna uu soo bandhigaya aragtidiisa gaarka ah ee magaalooga ilbaxnimada looma tixgeliyo xarun xudun kaliya ah waa tijaabooyin iyo xadaaro badan sidaas darteed Muqdisho wallow ay fog tahay waxay Ibn Battuta ula muuqatay meel ka nidaam iyo hanti badan magaalooyinka waaweyn sidaan ayuu socdaalku isugu bedelaa agab lagu fahmo aadamaha xiriirka uu la leeyahay goobaha iyo awoodda uu ku garan karo in nolosha halka ay jirtaba ay ka samaysanto aqliyada gaarka ah xadaaradana lagu dhiso wajahida shuruudaha nolosha intaan muuqaalka haddii aad la soo gaartay subscribe saar like saar mahadsanid